ran haddii uu qofka ku dhaco fayraska corona. Assalaamu calaykum, ku soo dhawaada muuqaal cusub iyo maantay. Waa sidee saamaynta corona marka uu qofka ku dhaco? Kani waa SARS-CoV-2 waxaana la isku dhahaa bahda ama qoyska coronavirus. Sababtuna waa iyaga oo leh dabool crown ama taajka oo kale ah. Haddaba SARS-CoV-2 waxa uu sababi karaa COVID-19, caabuq aad u daran oo saameeya dhuunta iyo sanbabada ama neef mareenka. Sidee ayuu noqonayaa qofku marka uu coronavirus haleelo? Maxaa sababay inuu pneumonia ku dhaco? Sidee ayuu talaalka coronavirus u shaqayn doonaa? caabuqa coronavirus waxa uu saameeyaa unugyada jirka ee nool si uu ugu tarmo. bal aan si qoto dheer u fiirino. fayraska gudihiisa hiddo-wadayaasha waxay ka kooban yihiin xogta ah inay isdhaldhaliyaan oo uu koobi ka sameeyo naftiisa. dahaarka borotiinka ah ee loo yaqaano protein shell ayaa waxa uu ka kooban yahay qolof adag taas oo dhowrta hiddo-sidayaasha intuu uu fayrasku soo gudbayo dadka. envelope-ka ama dahaarka sare ee fayraska waxa uu fayraska u sahlaa inuu weeraro unugyada jirkeenna isagoo isku dhex qarinaya dahaarka sare ee unugyadeenna. dahaarka sare ama cell membrane-ka waxaa ka lusha protein spike, borotiin ah sida masaamiirta oo ka lusha envelope-ka. masaamiirta noocan oo kale ah waxay isticmaalaan fayrasyada hargabka iyo koronaha si ay ugu galaan unugyada jirka. kuwo ka mid ahna waxay sahlaan inay la wareegaan hoggaanka unugyada. waa sida guri aad furihiisa haysatid oo sidaa rabtid u maamulanayso. marka uu qofka xanuunka qabaa uu hadlo, qufaco ama hindiso, candhuufada ka soo duusha ay taabatona jirkaaga sida sankaaga ama afkaaga, kadibna dhibcaha candhuufadaas oo fayraska wada ayaa u sii gudbaya sanbabadaada. mar allaale iyo markuu jirkaaga soo galana waxa uu sii gudbayaa sanka, dhuunta, kadibna sanbabada. kadib fayraska ayaa waxa uu dhegayaa receptors oo la socda xaaladda guud ee jirka, kadibna waxa uu dhegaa sida furo iyo qafil isku dhegan. fayraskuna sidaas ayuu jirkaaga ku galaa. hargabka caadiga ah waxa uu u baahan yahay qayb ka mid a daboolka sare ee unugyada loona yaqaano cell membrane. haddaba coronavirus uma baahna inuu sidaas sameeyo. waxa uu awood u leeyahay inuu si toos ah ula xiriiro ribosomka unugyada jirkeenna caadiga ah. ribosomeska unugyada jirkeennu waxay u sahlaan inay qaadaan hiddo-sidayaasha coronaviruska, waxayna taas u sahashaa fayrasku inuu ku dhex weynaado unugyada jirkeenna caadiga ah. kadibna waxaa bannaanka sare u soo baxa unuggii oo fayraska corona qaba. sidee qofka ugu dhici karaa oof-mareenka cudurka loo yaqaan ama pneumonia? wuxuuna inta badan ku dhacaa sanbabada qofka, waxaana sababa qofka oo neeftu ku dhegto. aan fiirinno sida uu u sababo koronuhu cudurka noocan oo kale ah. marka aad neef qaadatid, waxay neeftu maraysaa tuubada hawada qaada ee loo yaqaano trachea, waxaana loo sii gudbiyaa laba tuubo oo la kala dhaho bronchiole, kuwaasoo isla iyaguna u sii gudbiya unugyo yaryar oo loo yaqaano bronchioles. aakhirkiina waxay hawadu tagtaa alveoluska. alveolaydu waa sida buufinka oo kale. marka aad neefsato, hawo ayaa soo gasha, hawadaas oo ka kooban oksijiin. marka aad neefta celisana, waxaa ka baxda hawada carbon dioxide-ka. inta badanna hawada waxaa qaada dhiigga iyadoo ay sahlayaan xididada loo yaqaano capillariska, iyagoo oksijiinka kala baxaya alveolayga, carbon dioxide-kana celinaya. waa marka aad hawada qaadato kadibna aad hawadii soo celiso, hawadaas oo ka kooban carbon dioxide. hawo-mareenka qofka jirkiisa caafimaadka qaba waxa uu leeyahay cilia, taas oo qabata jeermiska intiisa badan una saarta duuf iyo qufac ahaan. sida caadiga unugyada difaaca hawo-mareenku waxay ku hawlan yihiin la dagaalamka jeermiska iyo fayrasyada, balse xaaladda corona waxaa ku adkaanaysa unugyada difaaca hawo-mareenka inay difaacaan coronaviruska. kadibna waxay u sii gudbaan oo ku tartamaan kuna siyaadaan alveolayga, taasoo sababaysa in hawadii aad qaadanaysay kugu adkaato, maadaama meeshii ay hawada dhiigga oksijiinku ka raaci jiray ay buux dhaafshay coronavirusku. taas oo sabab u noqota inay saamayn weyn ku yeelato sanbabada jirkeenna, sababtana lobar pneumonia oo saamaysa qayb ka mid ah sanbabadeenna, ama bronchopneumonia taas oo saamaysa goobo fara badan oo sanbabada ah. pneumoniyadu waxay sababtaa hawada oo kugu adkaata, xabad xanuun, qunfac, qandho, wareer, madax xanuun, murqo xanuun iyo daal. waxayna aakhirkii sababtaa in neefsashadu kugu adkaato. waxa uuna qofku u baahan yahay mashiinka loo yaqaano ventilator-ka oo ka caawinaya inuu si fiican u neefsado. waana mashiinka shirkadaha adduunka maanta ka howlan yihiin inay aad u soo saaraan. inaad xaalka sidaan u daran gashid waxay ku xiran tahay da'daada iyo inaad xaalad caafimaad ku jidho, sida dadka laga hayo sanbabada, dadka neefta qaba, dadka inta badan sigaarka caba oo neefsashadu ku yadhahay. runtii aad ayay halis ugu jiraan. waxaa sidoo kale jira isku dayo ah in la sameeyo talaalka coronavirus,
waxaa kale oo jira malo ay khubaradu meel iskala dhigeen oo ah in dadka coronavirusku horey ugu soo dhacay sida SARS-ka ay muddo ka badbaadi karaan fayraska. laakiin taasi waxay u baahan tahay xaqiijin gaar ah. waxaa jira habab badan oo tallaalka loo sameeyo. muhiimaduna waa in cirbaddu ka saacido in lagugu duro nusqo ama nooc coronaviruska ka mid ah oon dhab ahayn daciifna ah, kaas oo marka uu jirka galo unugyada difaacaagu si dhaqso leh isaga difaaci karaan, sahlaysana in unugyada difaacaagu samaystaan antibody khaas u ah la dagaalanka coronaviruska. waxa uuna ku dhagayaa antibody viruska, taas oo u diidaysa inuu jirka saameeyo ama unugyo kale saameeyo. kabacdina unugyada difaaca ayaa baabi'inaya coronaviruska. haddii uu cudurku kugu soo laabtona jirkaagu waa aqoonsanaya fayraska waana burburinayaa. isku dayada ah in tallaalku noqdo mid aan dadka si kale wax u yeelin ayaa ka dhigaya in tallaalku qaato muddo dheer. run ahaantii waxay qaadanaysaa waqti maadaama ay tilaabo kasta u baahan tahay muddo dheer iyo ka feejignaan. tallaalka eboolaha ayaa rikoodhka jebiyey oo qaatay in 5 sano keliya uu diyaar ku noqdo. runtii waxayna khubaradu rajaynayaan koroonuhu qaato waqti intaas ka yar, sanad ama 18 bilood ugu yaraan. inta lagu jiro hawshan, fadlan isku day inaad ka qayb qaadato gurmadka, gurigaagana joogto, kana fogaato goobaha badan si aan u dhowrno dadka maatada ah. sidoo kalena isku day inaad gacmahaaga dhaqdo ugu yaraan 20 sekin. waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena. si aad nooga hesho barnaamijyo kuwan la mid ah, fadlan waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe tiraahdo kuna soo biidho channelkeena Koryaal kana mid noqoto bahda dhanka kore nolosha. mahadsanidin.